wadaag gobolka banaadir oo iska soo aruursatay gobolka kale ma ku jiro waa mahadsantihiin runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa aniga waa jeclahay dhalinyarada gobolka banaadir iyo dhalinyarada iska soo aruursato iskood isku soo xilqaamay weli ma arkinin waa naga run isxilqaan barnaamijka isxilqaan ee baahsan ee shaqaalaha rayidka iyo gobolka banaadir oo ku tartamayaan weli dhalinyaro gooni isu soo xilqaantay oo sidiinoo kale ah oo cidna aysan ka soconin oo madaxdooda iyo guddoomiyahooda ay doorteen keliya hor socota annagana ma arkin yacni waa markii ugu horraysay taariikhda ayaa la dhihi karaa marka waa mahadsantiin runtii waxaan miisaanna ma naqaano miisaankiina xasanaadka allah idin saaro waxaa waaye barnaamijkaas xilqaan sidaad ogsoontihiin waa barnaamij qiimo iyo dhaxaltooyo ugu fadhiyo ummadda soomaaliyeed waa barnaamij markii horena dalka lagu soo dhisay maantana la rabo in dalka dib loogu dhiso marka dalkeen anagaa burburinay maxaan rabnaa laakiin hadda inaan ka waantowno burburintii hore ee aan gacmaheena dib ugu dhiso dad soomaaliyeed un baasaan u galay sidaan u duntay ilaahay amarkiisa ku duntay caqli darray ku burtay laakiin waxaan rabnaa maanta inay haddana ay ku dhisanto caqliga wanaagsan ee saliimka ee dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada waa boqolkiiba 75 la yidhaha dalkan waa muhiimadda koowaad ee dhallinyarada hadda 91dii markii la soo gaaray oo dagaaladii sokeeye ay bilowdeen aniga waxaan ka mid ahaa dhallinyarada idinkoo kale ahaa jaamacadda ummadda ka baxay ayaan ka mid ahaa qofka keliya ugu horreeya ee mustaqbalkiisa ku waaya burburkii iyo dagaaladii iyo colaadihii iyo qabiilkii iyo wixii qurunka ay ku soo shaqeyn yacni waa wax qofka ugu horreeya anigoo noqday waxaan ogaaday markii aan qaxay oo duurka galay oo aan dhalinyaro ahay oo aqoon-yahan ahay oo meelaha ka shaqaysta isa jirin oo dagaalka socda uusan u muuqan mid dawladda ugu dhisaayo waxaa ii soo baxday inaanan ahayn ruuxii maxaan ku yidhahdaa ka soo kaban karen oo asugu iskiisa ka soo kaban karen waxaa ii muuqata dhibaato weyn oo horteyda ka muuqata oo ahayd dawladdii dhexan inay naga burburtay dawlad degdeg u samaysmaysaan aysan jirin marka idinkana taas ku soo korteen dhibaatadaas ku soo korteen ku dhex qalateen maanta waxaan rabnaa inaan ka baxno si aan uga baxno waxay u baahan tahay marka go'aan casiime ah oo idinkoo kale dhallinyaro ah oo go'aanno qaad oo yidhaahdo wallaahi inaanan yeelayn dalkeenna gacanteenna ku dhisanayna dalkeenna gacanteenna ku difaacayna dhibaatada uga ilaalinayna oo dhulkan waana dacweynayo qiyaamadeeda dhulkan hadda aan taagannahay wuxuu leeyahay dagaalii uu kor suubiyeen ima aysan hagaagsan khayr uguma kor sheegin khayr uguma dhisin khayr uguma qabanin waana la dacweynaya cirkaas waana dacweyna war xaggeen aadayna xubnaheennaan dacweynayo qiyaamo markaa maxaa la rabaa marka inaan waxaasoo dhan hadda ilaahay dartiisa adduun iyo aakhira aan u shaqaysan adduun iyo aakhira maxaa ah in dalka dib loo dhiso in dalka nabadgelyadiisa laga shaqeeyo in dalka la difaaco xuduudihiisa in nabadgelyo la horseedo khayr in la horseedo kelima xasana la sheego kelima xasana maxay tahay kelima tayiba sadaqa soo maaha sadaqa in la sheego sadaqa inaad la baxdo subax walba gacanta aad ka dhiibto lacag iyo hadday isku mid tahay ay ka sii fiican tahay weliba ka warrama inaad kelimad wanaagsan qof u sheegto inaad wax wanaagsan qabato inaad hawl wanaagsan aad u qunto subaxda marka waxaan rabnaa dhallinyarada idinkaa idinku hadlayna dalka ogaada waa ogsoontihiin mas-uuliyiinta dalka hadda maanta ka shaqaysa badankooda maxay yihiin waa dhallinyaro ya maxaa loo diyaarinaya dalkan dhallinyarada loo sii diyaarinaya idinkaa laydinka gol xaaraya idinka haddaa ka shaqaysa waysa maxay noqonaysaa wallaahi aan ku dhaaranaa dalkan haddaan dadkan soomaaliyeed dhallinyarada aysan ku kicin aysan dhisinin sida s way dhallinyarada ugu kacdo ma dhismaayo ma horkacaayo dawlad ma yeelanayo waa la qaadanaya maantana waa ogteed in la qaadanayo shidaalkeen maddeen waxeen sidaad ogteed wax dhibaatada socota waxaasoo dhan ayaa ka hortegi kara annagoo daacad ah isku mid ah gacmaha isqabsanna walaal noqonna qabiil iyo qurb iska dhaafna dalkeenna horseed ugu noqonna nabad iyo nolol waa mahadsantihi wasalaamu calaykum midowga ururka dhallinyarada danwadaag ha noolaato danwadaag ha noolaato aniga agaasimarigana ka mid ah